muuqaalkani waa digniin ku socota qof kasta oo Soomaaliyeed. Ma ogtahay khatarta uu la soo baxay Clubhouse ee ku aadan dhalinyarada Soomaaliyeed? Ma qiyaasi kartaa tirada aad maqashay ama aad aragtay oo ah dhalinyaro ku gaaloobay afkaarta khaldan ee lagu gudbiyay Clubhouse? maxaa loo waayay culimo Soomaaliyeed oo ka hadasha khatarta ilxaadka ee ka socota aaladaas? sidee buu noqonayaa damiirkaagu waalid ilmahaaga oo guriga kula jooga misana rag masaafo dheer ka jooga ay habeen kasta ku tashkiiliyaan inuu gaaloobo ama uu diintiisa ka baxo? Clubhouse waa barkulan ama qolkooxeed la isugu gudbiyo xogaha hab maqal ah iyadoo ay hal mar ku shiri karaan kumanaan qofood oo meelo kala duwan jooga aragti ahaanna kala duwan. waxaas aasaasay Paul Davison iyo Rohan Seth bishii March 2020 waxayna u ikhtiraaceen maadaama coronavirus dartii aanay dadku isu tegi karin ama aanay u shiri karin inay helaan goob ay hab online ah ay isugu iman karaan. waa goob fursadda kaliya aad haysataa ay tahay inaad adigu dadka la hadashid ama xogta qofka kale gudbinayo aad dhagaha u raaricisid. awoodda qol kasta waxaa maamuli kara shakhsiga aasaastay iyo cidduu doortay, taasoo sahlaysa in fikirkiisa uun dadka uu kaga dhaadhiciyo halkaas. waxaa hadda uu noqday goob Soomaalida loogu gudbiyo fikradaha gaalnimada sida ilxaadka, masiixiyada iyo munaafiqnimada. sidoo kale wuxuu il u noqday xarumo lagu faafiyo anshaxumada iyo xumaanta. waxaa jira qolal casharada kaliya ee ka socda ay yihiin qabiilcay, diincay, oo weliba mararka qaarkood in beela la isku caayo tartamo loo qabto. kanay la eeg qolkan arrinta la yaab kale ee ka socota. sameereeso in lagu sumaarta sharafay no niki hooyada wasaq maseerin waa lagu saay niki. kana waa qol labaad oo si toosa la iskugu cayin. شوبدي كل شيء هذا أبو وسي فرمان كان قوسا يشوف كان حرنا شفكة أنا شفك يحرني وحبدي كرينا كتير وهذا نحجلها ماشي بلاي نحفظ شوف balyaabkan kala day. دلوحنا شكتنا أنا دلو مستا ناسا كاجيلا ناسا ببنت كل شيء هذا وسي. waxaa ka sii yaab badan in ay dhalinyaro u badan yihiin dadka halkan ku jira aqoontooda diimeedna ay aad u yar tahay. waxaase ugu khatar badan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan baran diintooda halkanna ku jirta ay rag gaalo ah oo alla diidka iyo diin-la'aantu qalbiyadooda buuxiyaan ay ku bixiyaan casharo joogto ah oo habeen iyo maalinba socda. natiijada uga soo baxdaana ay noqoto mid ay aad ugu farxaan oo xitaa ay ku helaan macallimiin kale oo ay tababarteen gaalnimadana la faafiya. subxaan allah. wax kitaab islaami oo dal isku xukumo dawladda habeeraad ma jirto. waxaa u baahan gabadha 15 jir wixii ka dambeeyo inay qangaar tahay 3 sanana inay lisanka ku diyaari karto guurka. haddaba meeya culimadii Soomaaliyeed maxaa looga aaminsan yahay khatartan oo looga hadli waayay? daawade mas'uuliyad baa ka saaran inaad muuqaalkan sii faafiso si qof kasta oo Soomaaliyeed uu uga gaashaanto ama uu iskaga ilaaliyo dhibaatadan ku soo food leh. ka waran maxaa kugu yaabadnaa oo aad ku aragtay aaladda Clubhouse barta hoose ee commentiga noogu soo qor. aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin.